Abdirsaaqo galgaduud cunuga yarka saqiirka oo dhalanaya wuxuu ku dhashaa aabihiis ama adeerkiisa qori wata oo dagaalamaya xabad dagaalamaya dagaalada iyo dib u dhaca iyo dhibaatooyinka bulshada haysta way jirayaan sidee bulshada nabad ku dhadhamin kartaa ayadoo taas ay jirto oo cunuga yarka 9 jirka ah 10 jirka ah oo ku dhalanaya aabihiis qori wata oo dagaalamaya oo jiida ku dhimanaya midkiisa markii la keenay reehbel baa dilay wuxuu Soomaaliya ha noolaato ku noolaan mayso cunuga yarka way waxa bari wax leenayo dagaalka radiya sidee qalbigiisa qabyaalada looga tirtiri karaa ka waran hadii reer galgaduud oo dhan waxa aan shaarka dawladda qamin oo dhan laga aruriyo ama qoryaha laga aruriyo ka waran wali ma u malaynaysaa inaysan buuga iyo iskoolka wax loogu dhigo aysan waxba tarin wali bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu saaxiibayaal kulan wacan wanaagsan maanta waxaa inoo fadhiya Cabdirsaaq Xasan Cali waxaanu ka hadli doonaa markaasi arimaha colaadaha soo laabta ee gobolka Galgaduud soo laabta dhawaan ay ahayd markii dhiig uu ku daatay gobolka Galgaduud aniga iyo Cabdirsaaq Xasan Cali oo isna dhankaas iyo Galgaduud iyo markaasi gobolada Mudug iyo Galgaduud soo jeeda ay markaasi isla wadaagi doonaa xoga markaasi ku saabsan qaabka colaadaha loo joojin doono Galmudug waxay colaadaas ka saartay dawladda dhexe waxay markaasi ka qabatay barnaamijyo badan oo markaasi colaadaha ku saabsan ayaynu aniga Cabdirsaaq Xasan Cali caawa halkan ku falanqeyn doonaa Cabdirsaaq soo dhawow waxaan aad u mahadsantahay walaal waa dhawahay waana kaaga mahad celinayaa fursadda wanaagsan aad siisay waana dhawahay walaal sidaad horeba u sheegtay colaadaha iyo dhibaatooyinkaas ka socda gobolada dhexe khaasna gobolka Galgaduud waa dhibaato weyn oo bulshada goboladaas degan Mudug iyo Galgaduud ba haysata saameyn weyn ku leh in badanna dhiig baa ku daatay walina ma muuqdo xal lagu joojinayo in badan baa waxa weeye goboladaas qeyl dhaanta colaadu ka soo yeereen waxaadna moodaa sanad ka dambeeyay colaadahaas inay sii xoogeysanayaan Cabdirsaaq Xasan Cali wax ka mid ah dadka aqoonta iyo markaasi lagu tuhmayo inay dhul yaqaan ku yihiin waxyaabo badan oo mataqaana caawa maamuskan inaan kugu yeerno colaadahan iyo aan falanqeyno sabab badan baa ka dambeeyay oo ah marka koowaad inaad ka soo jeedid dhankaas marka labaad inay tahay in aad tahay ku soo koray deegaanada oo kala yaqaana de wax asleenaya waa dadkaagii Galgaduud 8 bishan colaadii ugu weyneed oo ugu kulleed baa ka dhacday 10 iyo dhowr saacadood ay xabad socotay oo waliba 10kii saac subaxnimo bilaabatay ku dhawaad 10 saacadood aan dhehe socotay waxaa ku dhintay 61 qof tirada saxda la sheegayo waxaana ku dhaawacantay ku dhawaad 100 ruux wadad aad u tiro badan Soomaalina kama go'aan dadkaasi waxay kula tahay sababaha koowaad ee colaadda Galgaduud soo celisay horta inay tahay marka hore walaal maxamed horta waa nasiib darro in dad Soomaaliyeed uu dhiigooda maanta daato kaas oo u dhaxeeya Soomaalida dhexdeeda in badan baa dadka Soomaalidu dagaal la sokeeyay dhibaatooyin colaado iyo maaragtay dhibaatooyin soo noqnoqday baa ka dhex jiray marka inta badan waxa weeye wadanku dawladdiisu aad bay u leeyahay oo guud ahaan wadanka oo dhan gacan ku haynta dawladda ama shaqada dawladda ama nidaamka dawliga ee wadanka wixii ka dambeeyay 1991 maamuladu way iska liiteen marka dadku inay dagaalamaan dadka shacabka ah ama deegaanada kala duwan waxa sababaya dadku sida maamul la'aan aadanu ma noolaan karo dadku waa labo cidna waxay ka baqdaa sharciga iyo awoodda inna waxay ixtiraamtaa wada noolaanshaha iyo nabadgelyada waxay ilaalisaa sharciyada maaragtay bulshada u yaal marka haddii dadku cidna ka baqayn way hubeysan yihiin mar walba waxaa dhici kara dhibaatooyin isku dhacyo bulshada iman kara inta badan dawladdii markay burburtay dawladdii dhexe 91 wixii ka dambeeyay hubkii dawladda oo dhan iyo wixii qori iyo maaragtay saanad military wadanka yaalo oo dhan waxa bilaqaysa shacabka hubkii dawladda wixii 1990 ka dambeeyay dawladdii xoog badan Soomaaliya markay burburtay hubkii wuxuu u gaalay gacanta hub xoog badan buu ahaa oo wuxuu gacanta u galay qabiiladii meelaha qaar waxaad ku arkaysaa qoryo ciid cuntay inta dhulka lagu aastay oo dadka lagu leeyahay xabadooduna aysan ka soo laabasho lahayn haday ku dhacdo Galgaduud ana iyo adigu waa ka soo jeedaa waliba aad u kala naqaanaa Galgaduud marka la warnay ragga dhalinyarada ay Galgaduud falanqeeyay maxay Cabdirsaaq soo laabasho colaadahaas dadku waxay dhahaan waxay ka soo jeedaan daaqsinka dhulka daaqsinta qaybo kamid ah waxay dhahaan colaadaas waxay ka imaatay dhulka oo la isku dagaalayo daaqsinta marka leeyahay waa markii naqdo oo qibna xilay dhulka deegaanka ana kala hayn iyo deegaanka ana kala hayn colaadaas ayaan wali ku jirnaa la dheer iyo qalan qale ay ka dhacday dadba ku baabay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor wuxuu magacaabay guddi oo magacaabay wasiiro ah
sidoo kale ciidamada xoog badan oo markaas hogaaminayay taliyaha ciidamada Faysal taliyaha ciidamada wasaaradda qaybta oo galmudug taliya Faysal ayaa markaas xagga ku baxay waa la kala dhexdhexaday xabadii waa la joojiyay maalmihii hore labadii maalmo horeysay meedadkii iyo wixii dhaawacyada ahaayoo dee duurka galay baa la qaban la soo xareynay markaasi oo qaar iskaala la geeyay iyo qaar la xabaala ay noqonayeen dhanka galmudug aan maano galmudug bal falka ay qaadasay adiga kula tahay qiyaasta xaqiiqatan awoodda maamulka ee galgaduud ama maamulada gobolada maamul goboleedada iyo awoodda beelaha markii la isbarbar dhigo waxaad moodaa inay siman yihiin ama balance inay yihiin mar walbana haddii awoodda qabaa'ilada ama awoodda dadka hubaysan aan dawliga ahayn iyo maamuladu isleeyihiin wax badan saas kama qaban karaan dhibaatooyinka waddanka jira marka waxa keenaya in olaaduhu soo noqnoqdaan waa la kala dhaxgalay waa la kala qaaday waa la kala celiyay waa ereyda aynu maqlaynay ilaa 15 sano soo dhaafnay laakiin ilaa la helo maamul awood buuxda leh oo dadka hubka laga dhigo oo maaragtay adeega maaragtay dawladda la daadajiyo oo mintuulo ilaa baadiye la isku xiro oo maamulka maaragtay uu shaqeeyo xabadina ma istaagayso sodonkii sano dambeysay qabiilada Soomaalida iyo waliba 20 sano dambeysay qabiilada Soomaalidu qabiil kasta wuxuu ishubeynaya dib isku hubeynaya mana jirin dawlad gacan markaasi dhex gashay oo jira joojin hubka iibinayeen dawlad hubka aruurin sameysay badana ma la helin saas awgeed waxay sababtay hubkii dawladda dhexe gacanta u galay dawladda Soomaaliyeed 1990 gacanta u galay waxaas isbirbiirsaday awgeed maanta waxay keentay in ay qabiiladu isdagaali karaan 5 maalin 6 maalin dagaal soconaya ay oo aan xabadu marnaba joogsanay dagaal karaan hubka ay haysan tira badnidiisa awgeed cabsaaqo kow horta maxaa lagu joojin karaa colaadda galgaduud bal qodobada lagu joojin karaa noo xusanayo bulshada maxamed horta aad u mahadsan tahay horta nabaddu Soomaalidu waxay ku maadaan nabad baa naas inuu galay horta nabaddu ilaa dadku ay fahmaan qiimaha nabadda ay fahmaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inaga gobol gooniye ba sheegin Soomaaliya gudaheeda nabad ka dhici mayso hadda waxaan arkaynay ilaa dadku ay fahmaan nabadda qiimaheeda waxa weeye inta badan waad aragtaa waa la kala dhaxgalaa waa la kala qaadaa wada hadalaa la gala haddana wada hadal walba iyo heshiis walba iyo dadaal walba lagu bixiyo halkii dib uga bilaabatay marka waxa keenaya hadayna bulshadu u bislayn wada noolaanshaha iyo inay nabadda si guud u wada ilaaliyaan waxyaalaha bulshada caqabada ku haysa si guud uga wada hortagin nabaddu dawladda kaliya ma ilaalin karto ama maamulka meesha ka jira markaas cabsaaqo galgaduud cunuga yarka ah saqiirka oo dhalanaya wuxuu ku dhashaa aabihiis ama adeerkiisa qori wata oo dagaalamaya xabad dagaalamaya markuu ilmuhu dhalanayana hadduu aqoon ama meel ku barbaaro aqoon oo fiirinayo ku barbaaro oo aqoon soo raaca laakiin hadba waxaa tiraa dadka dadka bulshada nabadda aqoon cabsaaqo cunuga 5 jirka ama 6 jirka iyo reer galgaduud markuu dhasho aabihiisa colaad ku jiro dagaal ku dhintay u dhasho cuqdada uu qaadayo awgeed nabad si uu ku fahmo xaaladdu ku fahmo nabad inuu sahelin jaanis badan ka helin baa dhacda sidaas awgeedna waxaan ka duri hadalkaaga ahaa bulshada nabad badhaminayso sidee bulshada nabad ku dhadhamin kartaa ayadoo taas ay jirto oo cunug yarkoo 9 jirka ah 10 jirka ah uu ku dhalanayo aabihiisa qori wato dagaalamayo jiida ku dhimanaya meedkiisa markii la keenay leeyahay reebel baa dilay usna uu bari qori qaadanayo leeyahay inkirey aabahay dilan dilaya halkaas dagaal kale uu ka dhalanayo inaan dagaal kasto oo dhaca wuxuu ka dhashaa laba wiil oo isdishay maxay marka adiga kula tahay sidee loo dadka qalbigooda looga tiri karaa ana reebla badanka waxaad wadamada Soomaalida kale ama bulshada kale ama beelaha kale ama deegaanada kale Soomaalida waxa ka jira hebel laakiin tan galgaduud taala waa mid ka daran oo hebel shu si direct oo socotaaba hebel shay ugu camal falaya macna oo dadkii baa la saleenaya hebel baa isku leenaya marka cunuga yarka way waxa bari wax leenayo dagaalka ridiya sidee qalbigiisa qabyaalada looga tiri karaa horta inta badan deegaanka bulshada ku nool dhaqamada ka jira saameyn bay leeyihiin waxa la ilmuhu markuu korayana sida memory-gu uu duubo shayga marka lagu duubanayo ayaa ilmuhu u duuba ama yani uu bartaa dhaqamada deegaanka jira horta olaadaha qabiiladu waa wax gobolada Soomaaliya ka jira gobol aan Soomaaliya isku dagaalami jirto ilmahana waxa dhaqankiisa ama qabyaalada lagu yareyn karaa ama lagu bedeli karaa in la helo maamul wadanka guud ka wada taliya manhaj bulshada loogu talagalay manhaj aragti Soomaaliya Soomaalinimo leh manhaj aragti Islaami leh manhaj fog in ilmuhu markuu sida soo karo
waxa markaa deegaanka jira ayuu la falgelayaa. sidaa darteed haddii ilmuhu uusan helin waxbarasho ka turjumaysa soomaalinimada, ka turjumaysa wada noolaanshaha, ka turjumaysa qayimka aadanaha, ka turjumaysa in dadka Soomaalidu walaalo wada dhashay yihiin, ka turjumaysa in wada noolaanshuhu ay maaragtay danta guud ku jirto, oo ilmihii uusan waxbarasho tayo leh helin ama hogaamiyaasha gobolada ka jira ay yihiin hogaamiyaal macnaha dhan u janjeera. tusaale ahaan haddii ilmuhu uu arko uun markuu soo karo uun qabiilo laga sheekaynayo, olaado, dagaalo, reer hebel halka maanta isku haysta, waxaas ayuu ku weynaanayaa. marka inuu qabyaalada ula falgalo iska fududahay. marka waxaan u baahannahay in la fahansiiyo ilmaha ama bulshada lagu barbaariyo in wada noolaanshaha iyo nabaddu ay muhiim u tahay bulshada. ma jirto bulsho noolaan karta hadda caalamka kale. miyaad maqasho Chinaha dagaalo sokay ka socdaan ama Ruushka ka socdaan ama Mareykanka? miyaad maqashay wadamo fara badan. laakiin wadan walba oo dagaalo sokay ka jiraan waxa weey waa bulshadu kama dhisna, waxa weey asaasiga kama dhisna. cabdirasaaq waxaad tiraahday waxaa lagu bedeli karaa cilmigaas yarka ah ee reer galgaduudeed in qalbigiisa qabyaalada iyo dhiigga ku saab galaysan laga tiro, in manhajka la saxo. cabdirasaaqow dabku markuu shidmayo oo dabku uu ololayo uu yahay qiiqna bixinaya, qiiqaas hawada kama baxo ama eeriyadaas qiiqaysa ma ka baxdo ilaa dabkaas la damiyo kama baxdo. markii dabka la daminay qiiqi wali waa sii jiraa, xogaa yar ugu dambaysa sii jira. cabdirasaaqow iyadoo la damin xoolaada iyo dhiigga galgaduud ku daadanaya, inta ciyaalka la kaxayo iskool loo diro oo manhajkii laga dhaqo maskaxooda hoos Soomaalida nimada wanaag ku jiraan, wada nashana wanaag ku jiraa. aabihiis adeerkiisoo qorigooda afkiisa dhiig uu leeyahay, markay soo laabtaan guriga imaadaanna hadalkoodii uu maqlo iyo hebel baa soo leenay inta soo dilay oo maqlo. weli ma u malaynaysaa inaysan buugga iyo iskoolka wax loogu dhigo aysan waxba tarin weli manhaj kasta. xaqiiqatan horta waxaa jira dhowr waxyaalood isku xiran. horta nabadda iyo dawladnimadu way isku xiran yihiin. dawladnimada iyo manhajka iyo waxbarashada tayada leh iyo in bulshada la jahiyeen way isku xiran yihiin. marka ilaa dawlad la helo si guud wadanka oo dhan u gaarta min baadiye ilaa iyo caasimadda, dagaalada iyo dibudhaca iyo dhibaatooyinka bulshada haysta way jirayaan. wadan walbana dawladda ayaa shacabka jahaysa. manhajku waa aragti aqoon-yahanka wadanka ka yimaada. marka manhajka la qorayo ama wacyigelinta bulshada la siinayana waxaa lagu sameeyay baahi jirta. sidaa darteed marka hore waa in la helaa maamulku waa inuu aragti la yimaada. aragtida waa in bulshadii laga dhaadhiciyaa, lagu wacyigeliyaa, la gaarsiiyaa, kadib markaas ayaa miruhu soo baxayaan. sidaa darteed ma jiro maamul ama hogaamiyaal aragti leh si dadka Soomaaliyeed isugu soo dhaweeyo colaadaha loo dhameeyo. tusaale ahaan gobolka uu dariska leeyahay guud ahaan wadankeena colaada ayaa ka jira inta badan 18 gobol oo Soomaaliya ay ka kooban tahay iyo degmooyinkeeda. inta badan goboladaas colaada ka jira. mudug iyo galgaduud, waxa weeye shabeellooyinka, hiiraan, gobolada jubbooyinka, meel walba gees ilaa gees, waxa weeye sanaag iyo sool iyo togdheer, sool iyo waqooyiga, meel walba waxaa lagu damin karaa in la helo maamul bulshada u eg, maamul ka turjumaya aragtida bulshada, maamul ka shaqeynaya danta guud. dadku ilaa la baro dawladnimada iyo nidaamku in ay bulshada muhiim u tahay oo dadku isan maamulaan noolaan karin. horta aadanu sideesaba nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam haddii dadku ay hal ka bataan ama hal iyo labo ama saddex gaaraan inay samaystaan hogaamiye, taas waxay ku tusaysaa in isan aadanu noolaan karin maamul la'aan. galgaduud waa meesha ugu badan ee qabyaalad ama ay dhiig sukeeye ama dhahane aana qabiil la isku laayo ama la isku dilo. Soomaaliya waa meesha ugu badan dhiiggaas ugu badan oo ku daato. galgaduud ayadaan soo laabano waana bartamaha Soomaaliya. sidee ku dabeegnaa colaadda galgaduud ka oloosan? sidee ku dabeegnaa? waxaa lagu joojin karaa in dadka deegaanka ka soo jeeda aqoon-yahaniinta, ganacsatada, siyaasiyiinta inay mowqif midaysan ka qaataan sidii dhiigga quban loo joojin lahaa. laakiin maadaama siyaasadda waddanku iska wareersan tahay, bulshadiina weli wareersan yihiin, weli waxaad moodaa mowqif isku mid ah inaan laga qaadan. okay cabdirasaaq wax tiri mowqif isku mid ah lama qaadan. taas waa mowqifka afka ah. culimada markay ka caawin dhahaan war dagaalka joojiye aqoon-yahanadu intay marar gudan madaxa ku hartaan dhahaan war dagaalka la joojiyo, war dhiigga la joojiyo, war dad baa naga dhimanaya, war shacab baa naga dhimanaya dhahayaan. waa afka
awoodda xoogga ah oo reer galguud dhiigooda lagu joojin karo waa tee sheekh mustafa wuxuu allaha barakeeye wuxuu yiri Soomaaliya ha noolaato ku noolaan mayso horta colaadda hala joojiyo dhiiga qobanaya hala joojiyo war ilaahay ka baqa waxba horta ku hagaagi maayaan laakiin waxay u baahan tahay in ficil laba la yimaado ficilkaas wuxuu noqon karaa in waxgaradka gobolka ka soo jeedo si wada jir ay u wajahaan dhibaatada meesha ka jirta xididka meesha uu ka soo baxayna la awdo la soo aftiro la dhameeyo hadday dhibaatadaasi tahay deegaankii la xaliyo hadday tabasho kala tahay la xaliyo hadday mid siyaasadeed tahay la xaliyo hadday mid bulshada saameyn kale ku tahay la xaliyo marka waxay u baahan tahay in dhibaatadaasi si hoos loo eego halka in la raadiyo laakiin waxaad moodaa in mar walba dhibaato walba oo dhacda inay siyaasiyiinta gobolka ama dadka Soomaalida oo dhan ay qabiileeyaan ama ay siyaasadeeyaan ama dana gooniye maaragtay laga raadiyo laakiin uma baahna dhiiga Soomaaliyeed ee daadanaya in la siyaasadeeyo okay Cabdi Xasan Caliyo waxaan ku jirnaa guntiga gobol barnaamijka su'aasha ugu dambeysay ama wixii ugu dambeeyay aan ku weydiinay waxay tahay ka waran haddii reer galgaduud oo dhan waxa aan shaarka dawladda qamin oo dhan laga aruuriyo ama qoryaha laga aruuriyo ka waran halku muxuu noqon karaa taasna sida bas hore kugu soo sheegay walaal gaali shacab hubaysan dawlad xukuumi karta horta ma jirto haddayna jirin shacabku waxyaalo ay ilaalinayaan ama qawaaniin ay ilaalinayaan jirin shacab hubaysan oo dawladda ka awood badan oo ka hub badan oo ka ciidan badan ciidamada qabaa'ilada iyo ciidamada dawladda 5 jibaar 6 jibaar 10 jibaar qabaa'ilada hub badan sidaa darteed maadaama qabiiladii ay dawladdii ka hub badan yihiin dawladdu saameyn weyn ma yeelan karto dawladdu inta way ka baaqdaa hubka ciidamada dagaalada hal joojiyo macnaha awoodeedu waa dagaalada hal joojiyo iyo cambareena laakiin dagaalada hal joojiyo dagaal ku istaagi maayo marka ma waxa xalka ugu dambeeyo waa in hubka laga aruuriyo dadka hubka in laga aruuriyo wada noolaanshaha bulshada iyo nabadda Soomaaliya ay ku jirto wayahay saaxiibayaal kaasi wuxuu ahaa Cabdi Xasan Cali oo kamid ah ardayda jaamacadaha magaalada Muqdisho oo kalena ah dadka aqoon-yahanka ee ka soo jeeda gobolka Galgaduud Cabdi Xasan Cali ayaa maanta barnaamijkan Martin uga ahaa wuxuu ku saabsanaa faraqeynta colaadaha ka taagan gobolka Galgaduud inta aynu barnaamijkan la kulmi doono aniga maxaa farax jaamacada Saas iyo Amaan Allah